السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتين سيدا عن كور قبنو أما هو ده أجنهي أنتين بدن الصومالي ده واحد إنه استعماله موبايل أندرويد لسه كواس أو موبايل ده أنت بدن شبان صوبته آيفون ده وغالي مركا واحد ترى تريكس أنت بس كعاوني إن تصفط موبايل كاغا واستعماش أنا ما أنت وحنا كسيني يا صدق قضب أما صدق تبس أنت تريكس كواس كعاوني موبايل كاغا إن سيدا فضل وسيدا وقفض واستعماش فضلا هدي القناة ku cusub tahay subscribe de like de share na de magacaygu waa Mustafa Ali Ahmed halkaad iga daawanaysaana waa Tixi Technology qodobkeena koobaad waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan device care haddaba sideen wada ognahay mobilku waxa uu leeyahay wax loo yaqaan storage iyo wax loo yaqaan memory aniga mobilkayga storage-kiisu waa 64GB halka RAM-kiisu yahay ama memory-giisu yahay 4GB badana mobilada 64GB ga mar 3 bay noqdaan memory-gooda ama RAM-kooda mar waxay noqdaan 4GB halka 32 inta badan ay noqdaan 2 aniga kaygu waa mobil A12 Android ku jira waa Android 11 sidoo kale RAM-kiisu waxa way 4GB halku storage-kiisu ka yahay 64 marka waxaan ku tusayaa waxa jira apps fara badan oo kugu jira mobilkaaga kuwaas oo aad u isticmaasho isla mobilkaaga oo sometimes culays ku keeni kara marka imika saddex program oo social media isku soo furto kale haddaba qodobka koowaad aan ka hadlo markii koowaad waxaad sameynaysaa halkaas aad cadaajinaysaa halka dhexda markaad cadaajiso ama desktop-kaaga hore markaad cadaajiso ka bacdi afar wax baa halkan kaaga soo baxaya afar taa waxaad dooranaysaa ka loo yaqaan widgets ama widgets ka markaad doorato ka bacdi waxyaalo badan baa kugu jira waxyaalo fara badan ayaa kugu jira waxaad sameynaysaa waxaad dooranaysaa ka loo yaqaan device care ka dabal nooc buu ku soo saaraya ka koobaad sameynaysaa wax kale ma saanaad u riixaysaa ka bacdi baad oranaysaa marka tiraahdo waa kan halkan inoo yaala halkan ay noo soo dhigaya dhexda way inoo yara weyneynaya marka wayna weyneyn haddaba sidaad aragto memory-gaygu aniga waa 4GB halka aan ka isticmaalayo 2.6GB memory-gaygu waa 4 laakiin waxaan imika isticmaalayaa in use waa 2.6GB ayaa intaan isticmaalayo halka uu yahay storage-kaygu 64GB 35 kamid aan isticmaalayo waxaan sameeyay haddaba si aan memory-gayga u yara fudaydiyo waxaan taabanayaa halka ayaan taabanayaa ka bacdi marka hore saan oranaya halkaas aan taabanaya marka saas kale u yaro sida xaqin oo kale weeye halka maxaad ku aragtaa your phone has been optimized halka muxuu ahaa 2.6 maxaa laga dhigay 2.2 halkaasi waa qodobkeena koowaad أنا أقدمنا قدب كنا لبعض waxa uu ku saabsan yahay sidee baad u akhrin kartaa message-yada lagu soo diray ahdana la delete gareeyay oo yaa delete gareeyay waxa laga yaabaa qof WhatsApp-ka ka soo diray message inuu delete gareeyay ay ha ahaato ama amaan ha ahaato wax doonto ha ahaato haddaba sidee baad u akhrin kartaa dad badan baa jira oo isticmaala magaranaysa GB WhatsApp-ka oo way arki karaan qofka message-yada uu delete gareeyay laakiin waxaan ku tusayaa adigoo isticmaalaya mobilkaagan inaad aragto حتى ما هاي مقارنة واتساب كلي مع التليجرام كهذا كتلا كسان وحقوق تسيون واتساب واحد سمين سواء كلمة سمينيسد هوس بدو دقيسة بعد واحد تقيسة ستينكا مركز تكتو هوس بدو سعنسة نوتيفيكيشن كتقيسة نوتيفيكيشن مركز تكتو هوس بدو سعنسة كبعد مركز سعود واحد تقيسة أدفانسر ستين مركز عد مرة واحد تقيسة نوتيفيكيشن هيستوري بالكلمة قبليس واحد سمين سا واد فريسة waan furay haddaba si aan u arko bil message-kii la delete gareeyay waxaan sameeyaa mobile kale ayaan soo qaadaya waana isu diraya message baan isu diraya doona waxaan leeyahay hosh baan ku leeyahay waxaan doonaan u qorayaa marka message-kaas uu dhacay haddaba waan iska delete gareynaya anigu delete baan leeyahay for everyone waxaan sameeyaa haddaba meel kale ma tegayo saana oranaya notification-kii baan tegayaa hoos baan tegayaa advanced setting كبعد واحد تيجي notification history 6 new notifications بكوجود وكان this message was deleted وكون مقطع هل كان هو محي وهوشوي هوش تاسين إنه مركينا قصيصي message كان صدري وحفلين أدفانتي قدبك فضلا هذا channel كويس وبتاع سبسكرايب صار لايك نصار شير نصار إنه قدبنا qodobkeena saddexaad waxa uu ku saabsan yahay wax loo yaqaan QR code scan for Wi-Fi haddaba
waxa jirta inaad adigu tagto meel imiko kale ma garanaysaa meherado kale oo saaxiibka wireless kuugu jiro laakiin saanu adiga kuugu jirin waxa jeclaysatay inaad marka wireless ka gashato laakiin waxaanad haysan passwordka isna ma hayo waxaan ku tusayaa sida ugu fudud aad wireless ka ku isticmaali karto ama aad u geli karto waxaad sameynaysaa marka koobaad kan labadaba wax tigisa settingka ama wifi gumba toos tigisa connection ka tigisa kana connection ka tigisa kana waxa tigisa marka wifi ga kana wifi ga marka waxa sameynaya si aan ku tuso kana forget iska oranaya kan ayaa forget iska oranaya sida aragto halka mobilku wuxuu ku leeyahay calaamad QR code muujinaysa wifi gaygana gelaya wifi gaygan markaan galo waxaan sameynaya marka QR code meesha ay ku qoran tahay tigiya kana waxaan sameynaya waxaan tigiya calaamada markaan tago ka bacdi wax kale ma sameynayo sidaan aan oranaya kan kale aan ku iskaan gareynaya toos buu soo qabsanaya marka wireless-kina saas ku galay saasuna ku dhayn waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan hadda ku cusubtay channelka subscribe like share na taabo aad iyo aad baad mahadsantahay